maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo iyo qayb badan. Waxay ka mid tahay toddobaadka xorriyadda ee dalkeena Soomaaliya. Waa maalin ku suntan una taagan gobonimada, midnimada iyo jiritaanka dal iyo shacab Soomaaliyeed. Dabaaldegga caynkan ahna wuxuu na xasuusinayaa wadaniyadii, jacaylkii, sooyaalkii, halgankii iyo dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka ahaa ee ay awoowayaasheenna ay xorriyadda dalkeena ku hantiyeen, waxayna u hureen naf iyo maal si ay xiriirda gumaystihii ay isaga rogaan. Marka si guud waxaan rabaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay kaga sugan yihiin adduunkan dacaladiisa in ay u istaagaan kana qayb qaataan dadaalada loogu jiro dib u dhiska dalka. Haddii ay noqoto nabadeyn, haddii ay noqoto dib u heshiisiin, haddii ay noqoto horumarka dalka, in aan kaalinteena buuxino marka koowaad. Waayo mar haddii ay SYL 13 dhalinyaro ka koobnaayeen, ayagoo sida aan sheegay fursado badan anaga maanta aan haysano ayaga xilliga aysan haysanin, ay dalkaas dhan ay xorreeyeen oo dadaal ay ku bixiyeen, juhdi ay ku bixiyeen, soo jeed fara badan ay ku bixiyeen. balka waran anagoo intaasoo malaayiin ah haddii aan gacmaha isqabsano oo fikir iyo talo iyo caqli iyo maal iyo intaba aan kulmino, dalkeena wuxuu noqon lahaa meel barwaaqo ah, meel horumarsan. waa wada ognahay dalkeena waa huban. meesha caalamkaan rabaa inaan si gaar ah halkan aan iyagana fariin kaga daro. marka koowaad waan bogaadinayaa kaalmada iyo garab istaaga ay noo fidiyeen xilli aan ku jirnay xaalad adag iyo burbur. waxaana ka codsanayaa si gaar ah inay daacad iyo dhexdhexaad inay ka ahaadaan dadaalka loogu jiro dib u dhiska iyo dib u soo qabashada dalka. aysan siyaasi gaar ah iyo cid gooni ah aysan walkooda si aysan u noqon dhexdhexaad inay ka ahaadaan si marxaladan lagu jiro ee adag loogu gudbo. wanaagga iyo talada wanaagsan iyo inta ay soo kordhiyeen waa noogu mahadcelin. caalamka waxaan ka codsanayaa inay si gaar ah cadaadis ugu saaraan madaxda iyo siyaasiyiinta dalka in ay ku shaqeeyaan kana run sheegaan rabitaanka shacabka iyo dhaartii ay ku dhaarteen ee ahayd in waddanka wanaaggiisa iyo horumarkiisa ay ka shaqeynayaan. marka inay cadaadis ku saaraan, mar walbana xasuusiyaan rabitaanka shacabka inuu dhaqan galo. ma ahan siyaasiga mise hoggaanka in uu wax uu asaga iska rabo uu sameeyey ee inuu ku shaqeeyo rabitaanka shacabka. waxaan alle ka baryayaa inuu dalkeena noo xasiliyo, nabad iyo naxariistiisa na siiyo, colaadda iyo abaaraha soo noqnoqshay naga dulqaado. war Soomaaliyey waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxaa naga dhexeeya dal qur ah, waxaa naga dhexeeya hal diin, waxaa naga dhexeeya hal luuqo. intana ma garan karo meesha ay salaada iska qaban lahayd. marka waxaan leeyahay aan qulubta isu furno, qalbiga isu wanaajino, walaalnimada iyo Soomaalinimada hanaga weynaato. qabiil iyo qurun wax uu soo kordhinayo iyo cid ka faa'iido ka macaashta ilaa had lama hayo, dhibaato aanan ka ahayn. marka qabiil iyo qurun halkaasna laga dhigo. waxaan leeyahay marka Soomaalinimadu hana deeqo, Soomaalinimadu wax walba aan ka hormarin. waxaynu nahay dad Islaam ah oo diinta Islaamka lagu dhalay. inaan ka run sheegnaa fiican. marka diinta waxayna farayso inaan ka run sheegno. ilaahay wuxuu nagu ammaanay inaan nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhuuna 'anil munkar. inaan xumaha iska reebno, wanaagana is farnay diintana faraysa. marka Soomaaliya dhaqankeena aan hagaajino, dhaqankeena ku saleysnaado awaamirta ay diinteena noo sheegay. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed meel walba uu dunida afeeda ka joogo. waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa xiga nabad, bashbash, barwaaqo iyo caafimaad Allah noo wada gaarsiiyo dhammaanteen insha Allah.